بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد walaalyaal dhammaan akhyaarta ardada Soomaaliyeed meel allaaliya meel kastoo ay adduunka ay ka joogaan, waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaas kadib waxaan rabaa maadaama imtixaankii wasaaradda waxbarashada ee dugsiga sare uu ka dhiman yahay maalmo yar oo kooban ay ka dhiman yihiin, ayaa waxaan go'aansaday inaan idin soo gudbiyo 10 qodob oo aan isleeyahay ardayga haddii uu sameeyo wax badan baa imtixaankiisa insha allahu tacaala oo guula ayuu ka soo hoynayaa. waxaan wax badan ka shaqeeyey waxbarista ardayda dugsiga sare gaar ahaan fasalka foonfoorka. sidaas oo kale waxaan ka shaqeeyey imtixaanka wasaaradda waxbarashada. xog badan baan marka waxaan ka hayaa ardada mushkiladaha haysto markii imtixaanka ay galayaan, markii imtixaanka ay diyaarinayaan, xiliyadan oo kale walwalka ardada soo wajaho baan xog badan ka hayaa. sidaa darteed marka waxaan go'aansaday 10 qodob inaan idinla wadaago, warkan aan idinku badin hadduu Ilaahay yiraahdo. qodobka koobaad, qofka ama ardayga imtixaanka diyaarinaya waxaa laga rabaa al-i'timaadu cala Allah, inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ictimaado. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa Allaha koonka abuuray, adiga ku abuuray, wax walbo adduunka yeelana oo culusna waa Allaha culayska ka dhigay, wax walbo adduunka yaala oo fududna waa Allaha fududeeyey. marka inuu addoonku Ilaahay subxaanahu wa tacaala ictimaado, Ilaahay tala saarto, Ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dhiibo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku kalsoonaado, Ilaahay baryo. qodobkaas waa qodobka ugu horeeyo oo qof walba oo adduunyada guulaysto uu ku guulaysto waay. marka qodobkaas ardada aad ayaan ula dardaarmayaa inay Ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ugu xirnaadaan, ilaaliyaan amarka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxa Ilaahay ka reebay ay ka haraan, xifdigooda si uu kor ugu noqdo u wanaagsanaado. qodobkaas marka waa qodobka koobaad. qodobka labaad wuxuu yahay al-i'timaadu calaa nafsik bacda Allahi tabaaraka wa tacaala. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib markii aad tala saaratay inaad naftaada ictimaado ama naftaada inaad ku kalsoonaato. kalsoonida naftaada aad ku kalsoon tahay waxay ku baraysaa inaad wax iska diyaariso, waxay ku baraysaa nin faca inaad waxba weydiinin, waxay ku baraysaa inaad tahay nin weyn oo diyaar galoobay waqti hore inaad tahay ayay ku baraysaa. qodobka saddexaad wuxuu yahay alqiraa'atu mubakira, waqti hore inaad wax akhriso. imtixaankii hadda dhowr maalmood ka dhiman, haddaa inta hadda buugga la soo orada wax akhriso wax badanoo macnaa ma keenaysa. waxaa laga rabaa laakiin waqti hore sanad dugsiyeedka markuu bilaabanayo inuu ardayga wax akhrintana la bilaabo. waxyaalaha ardayga u keeno inuu guulaysto ayay ka mid tahay. ogow qofku markuu wax xifdinayo, xifdiga wuxuu u baahan yahay maskaxda inuu dego ayuu u baahan yahay, ama qalbul baatinka inuu u gudbo ayuu u baahan yahay. wixii marka 2 mar ama 3 mar aad ku celceliso, adigu waxaad isku malaysaa inaad xifdisay laakiin waxba ma aadan xifdinin. waxaa la rabaa waxaas qalbigaada inay galaan oo aadan weligaa iloobaynin. taas ayaa xifdi liraa. waxa kale oo dhan wax badan oo macno ah oo xifdiya malaha. marka qofka hadduu waqti hore waxaan akhrintooda bilaabo, wax badanna uu ku celceliyo, qalbigiisa ayuu degaya. qodobka afaraad wuxuu yahay التركيز على الحفظ والفهم معا. qofku inuu diiradda saaro waxa uu xifdinayo inuu fahamsan yahay. marka xifdigii iyo fahamkii oo wada socdo inuu qofkan diiradda saaro waa muhiim. haddii aad tahay xarfi wax iska xifdisan laakiin wuxuu xifdisan yahay aan fahamsanayn, su-aashii aad awal soo xifdisay ayaa kelimadii awal aad xifdisay lagaa bedelaa. bas kelimadii ayaa lagaa bedelaya. markii kelimadii lagaa bedelana maxay dhacayo? adiga su-aashaas ma taqaan, waana su-aashii aad soo xifdisay oo waqti badan aad soo gelisay. sababtu waa maxay? waxaad ahayd mid wax uusan fahmin xifdiyo. sidaa darteed marka waxaa kugu dhacay inaadan hadhow kala sooci karin
kalimaadka mutaraadifaadka oo isu eg oo haddii tan la isticmaal macnihii uu sax yahay haddii tan la isticmaal macnihii uu sax yahay ayadana kala fahmi karin laakiin qofka hadduu fahamka iyo xifdiga ay isla wada socdaan wax weyn baa hadhow qofkaas u hagaagaya qodobka shanaad wuxuu yahay hala saaxiibin dadka yacni loo yaqaano kuwooda aan horumarka badan lahayn hala saaxiibin ko waxaa jira dadka loo yaqaano kuwa dadka la haro dadkay la haraan say dadka ula harayaan wuxuu ku leeyahay imtixaanka qishaa la helaa imtixaanka wuu iska fudud yahay imtixaanku dhib ma lahan imtixaanka waa la iska baasaa hebel buu iska baasay kuwaasa la saaxiibin sababtoo kuwaas hadaa la saaxiibto waxa ay kaa hor istaagayaan ama waxay kugu noqonayaan caqabad iyo buur weyn oo kaa hor istaagto inaad wax akhriso ayuu noqonayaan qodobka lixaad wuxuu yahay imtixaanka markaa gasho oo imtixaanka lagu keeno waxaad muujinaysaa huduu deganaan cabsida iska ilaali walwalka iska ilaali boodboodka iska ilaali amardidada iska ilaali wax kasta oo imtixaankaada dhib u keeni karo iska ilaali huduu